bal markaan aynu u soo laabanno meelo badan oo dabcan waddanka Kenya ka mid ah iyo Soomaaliyaba dabcan abaar xun baa ka jira dadkii haraad iyo gaajo ay u la'anayaan dunyadii ay dhaqanayeen oo xoolihii ahaa ayaa ka baaba'ay naftooda ayay la soo carreen oo ay ula soo ordeen deegaano kale oo ay tuhmayaan waxoogaa inay ka nolol iyo deganaansho iyo naga fiican yihiin meelihii gaajada umuska iyo sidoo kale dabcan ee baaba ka jiray walise waxaa la tuhmayaa inay maqan tahay gacantii qumaneed ee dadkaasi wax tari lahayd ama dad isxilqaami ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama dadkii deegaanka u dhashay ee matalay xamse ayaan ku wareejinayaa oo soo ururiyay macluumaadadaas xamse soo dhawow aad iyo aad umahadsantahay cabdul sidoo kale haddii aan sidaad sheegtay arrimaha abaarada dalkani Kenya aan kusoo noqono waa tii aan ku sheegay dhawaan in dhaqaalihii looga talagalay dalkani Kenya in abaaraha lagu xakameeyo khaasatan gobolka waqooyi bari Kenya waxaa la ogaaday in la lunsaday dhaqaale aad u tiro badan oo looga talagalay in wax looga qabto dhaqaale abaarihii sida weyn u saameeyay gobolka waqooyi bari Kenya arrintaasi waxaa sidoo kale xaqiijiyay mid ka mid ah xildhibaanada laga soo goorto gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in qaar ka mid ah madaxda ay lacagahaasi jeebka ku shubteen haba ahaatee hadda madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in 25 bilyan loo qoondeeyay in dadka ay abaaraha saameysay wax weyn looga qabto waxaa jirta deegaanada qaar oo dhawaan la geeyay cooska oo xoolaha la siiyo raashin baa la geeyay marka waxay leeyihiin dawladda waxay doonaysaa inaysan macnaha abaarta saameynteeda aysan hor aan u sii sacanin ay dad dhibaatooyinka aysan ka soo gaarin marka 25 bilyan waa lacag aad u badan wax weyn qaban karto laakiin lama sheegin qaabka loo kala qaybin doono ismaamulada laakiin qaabka inta badan waxaa la ogyahay goobaha ay abaaraha saameysay waxaa ka mid ah gobolka NFD laga soo bilaabo ilaa Turkana Marsabit Moyale Wajeer Isiolo dhulkan dadka xoolo dhaqatada ah oo asal la isku yiraahdo ayaa dadka ay saameynta badan ee abaaraha u geysatay ayay tahay marka tilaabadan madaxweynaha ku dhawaaqay oo ah in lacagahani loo qoondeeyay in abaaraha wax looga qabto ayaa waxay rajo gelinaysaa shacabka gobolka NFD in ay macnaha dhibaatooyinka soo gaaray dawladda wax ka qaban doonto dabcan markaad fiiriso xaaladaha jira iyo duruufaha jirana dabcan ma isdhihi karnaa dadka dhiban ee abaaruhu ay saameeyeen gargaarkii iyo gacantii inkastoo gargaar iyo dabcan garabba cidda ugu weyn laga sugay tahay dabcan ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin aadamigu naxariis baa loogu talagalay inay dabcan sameeyaan isku naxariistaan isu gurmadaan is caawiyaan haddaa maanta ladan tahay berri waa xaalkaada ilaahay baa og haddaa maanta dhiban tahay berri inaad ka baxda laga yaabaa wax iska caadi ah waa halganka nolosha iyo duruufaha gobolka aad sheegtay aad buu u dhiban yahay dad ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan intii dhaqdhaqaaqaysay ee siyaasadda ku matalaysay maxaan iyaga ku tilmaami karnaa ma doorkoodii gabeen mise danta deegaanka iyo dadkooda waxa ugala weyneed damcooda siyaasiga waa iska caddahay taas marka hore mas-uuliyaddii saarneed ayay aad iyo aad u dayaceen run ahaantii haddii dhaqaalihii yara looga talagalay in dadkaada wax looga qabto aad jeebka saaratid waa run ahaantii mas-uuliyad darro aad u weyn waxayna horumariyeen baahidii bulshada waxay ka horumariyeen baahidooda ama maxaan ku yiraahdaa arrimahooda khaaska ah madaxdan aad u jeedid waxay leeyihiin ganacsi kuwa qaar iyagoo waxba aan haysanba siyaasadda soo galay maantana waxay leeyihiin guryaal fara badan ganacsiyaal waaweyn bay ka dhisteen waana dhaqaalihii looga talagalay shacabka deegaanka iyagu ku matalaan marka ay u tagaana waxay leeyihiin ani adiga ayaa isku reer ah dhibaatada jirta marka waxay tahay gobolka ka jirto shacabkii ayaa iyaguna aaminsan in reer hebel ka laan dheersan yahay una ka degan yahay aysan fiirinin ama aysan qiyaasin war iyaan la xisaabtami karnaa iyaa mustaqbalka caruurteena yaa wax ka qaban kara marka waa dhibaatooyinka run ahaantii haysto waana waxa u dhaxeeyo shacabka deegaanka eed bay leeyihiin mas-uuliyiinta ayaguna waa sidaas oo kale sidoo kale isla abaarahan ka jira qaybo kamid ah gobolka waqooyi bari ee Soomaaliya sidoo kale isla gobolada kale ee Soomaaliya xuduud la leeyihiin oo sida Jubbada Hoose aad ba iyada runtii dhibaato ayaa ka jirta gado dhibaato ayaa ka jirta marka barbar dhigto gobolka waqooyi bari iyo gobolada kale sida gado iyo Jubbada Hoose kulay warbaahintu waa la socotaa waa aragtay yaa darano nugul maanta wallahi run ahaantii horta xaaladda ka taagan gobolka gado waa mid aad u hooseyso
oo dhibaatooyin fara badan baa maxaan ku yiraahdaa aan arkay ay ka soo gaartay shacabka wax yar kuwan waqooyi bari wax yar bay dhaamaan Soomaaliya macnaha kuwan booyado bay inta awoodaan booyado bay gaariyaal looga geeyaa biyo iyo wax noocaas ah bay wax yar lagu taakuleeyaa sidoo kale ay waxaa jirta qaybo kamid ah gobolka waqooyi bari Kenya oo buuraaley oo waaweyn baa jirta oo mararka qaar la isu guuro inta badan dadkana waa macnaha waa dad isu soo dhaweey markay abaaraha dhacaan waa la isku soo dhawaada meesha biyaha laga helo biyo meesha baadka lagu isku helo dadka waa is walaaleystaan waa la isu imaado waa la iska caawiyaa laakiin geedo run ahaantii waa dhul aad u banaan intiisa badan oonan geedada badan aan lahayn iyo maxaan ku yiraahdaa dhir badan aan lahayn si gaar ah jubbada hoose waliba khaha jubbada hoose marka dhibka geedo ka jiro iyo NFD hadaa la isku barbar dhigo kan geedo ayaa culus ayaa daran dabcan si lamid ah sida aynu siyaasiyiinta Soomaalida Kenya u dhaliilnay oo aynu u sheegnay tooshkana ugu ifnay inay gabeen doorkoodii si lamid ah dabcan maamul baa ka jira gada siyaasad ahaan haluu kala aragtidu wanaado laakiin dad ayaa ku matala dawladda dhexe oo runtii ay tahay inay ka warqabaan dadkoodii waxaad moodaa inaan iyaga weli la haynin dawladda guddi bay magacawday oo isla guddiga Jubbaland ay u magacawday arrimaha ay abaaraha ay wada shaqeeyaan waxaan maleynayaa inay dabcan maamulka u tageen oo ay ka wada hadleen markaan eegno gada xaaladeeda jubbada hoose duruufteeda wadanka doorashada uu ku jiro siyaasiyiinta danta ugu weyn ee ay siyaasadda ugu jiraan inay dad matalaan ma ahane waa inay dantooda siyaasadda ay dabcan ugu dhex jiraan ma dhihi karna waxaa u muuqataa in ay dhaqan u noqotay madaxda Soomaaliyeed meel walba joogto in baahida bulshada ay ka hormariyaan baahidooda aysan matalaad aan u saacneen balse ay doonayeen in ay mushaaharaad iyo dhaqaale ku helaan oo kaliya kursigaas marka waa dhaqan oo u muuqdo in Soomaalida dhan madaxdeeda ay ka wada siman yihiin sida sheegtay gobolka Gedo ee Soomaaliya gudaheeda run ahaantii dhibaatada ugu weyn ma aha markii ugu horeysay mar badan ay ku soo noqotay waxaana muhiimsan marka ay noocaasata in loo dejiyo shax qaabka looga hortagi karo mustaqbalka haddii ay masiibooyin noocaasi oo kale ay soo baxaan tusaale haddii aan ku siiyo wax yar gudaha Soomaaliya dhaxda u galno beledweyne marar badan bay fatahaado fara badan ay saameysay wax laga qabtay ma lahan lagama hadlin mustaqbalka biyahan ama Google nagu soo jeedo sidee ba biyahan looga leexi karaa magaalada marka haddii maalin walba madaxdii isla noocaasi la doorto weliga kama bixaysa dhibaatada aad ku jirtid oo dantooda ma ahan ee danta shacabka aan fiirinayn waayahay waa maasan tahay Xamsa aynu halkaas uga gudubno warbixinada la xiriira abaaraha ka jira qaybo kamid ah gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo labada gobol ee kale ee Jubbada Hoose iyo Gedo oo runtii xaalad adag oo nololeed oo indhaha aan loo dhameystiri karin ay ka jiraan dadka haraad bay u la'anayaan gaajo daran ayaa jirta markaad aragto muuqaalka laga soo duubayana diif iyo dihaal iyo darxumo xanuun badan ayaa runtii dabcan laga dheehan karaya muuqooda waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay dhibta iyo duruufta ka dul qaado oo dabcan naxariistiisa guud iyo midiisa gaar ahaaneedba uu ku manaysto waa tahay